زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. سيظل للتاريخ واسم حافل، سيظل فخرا يعتلي الأجيال، سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا داوديال ومركلي برنامج كيني الطريق إلى السدع، أما سيدان كسد عني جماعة السادعون بالحق يغطلق شيئين دادك الله ذاك بشهر رمضان بركيسا. برنامج كاس أنكو وريسان نحبنا كترسان جماعة سيان وكور قلنا جيدي سعودكي دعوذو ذب باللوغي إلى إمالنتي حق أي لسو بنام بحين انتي نيلا سعودتي حلقة دي نوغدن بيسي وحان كقصو هذا لني الرمال لحريري وحاوية النفسيات كقود أهان جماعة قارهان قيادة وحاوية لحظة الصفر مركي وقتك اللقبتي هدبا وقتك اسقره هيو وسور دوان هيو وحاوية مشاعرتي أرنتا لحريرتي يسيدي اللور نولا إيان كسو هذا لني لحظة يدرينكي مركز تاقنا waxaan rabnaa xalaqadan inaan kaga hadalno sadcigii jamaacadu way sadcisay, xaqii way cadaysay, barnaamijkoodiina way fuliyeen. waxaan rabnaa marka inaan isweydiino bal maxay maanta jamaacadu sidee bay u aragtaa sadcigaa ay sameeyeen. waxaa caawa noo martiya doctor cabdulqaadir cabdi waare. doctor soo dhawow. sidii aan horey uga soo hadalnay waxaa weeye dabcan arrimo badan baan ka soo hadalnay ugu dambeysay laxadaadkaas sidii ay jamaacadu ula noolayd. marka maadaama marka sadcigii hadda la gudagalay oo jamaacadu sadcisay oo ay hawsheedii gudatay, waxa weeye su-aalaha imaan karaa waxay tahay jamaacadu siday u qiimeynaysaa sadcigii ay sadcisay, ahdaaftii ay lahaydse ma u xaqiiqowda, natiijada maanta ay gacanta ku haysahay waa maxay. waxaan jeclaan lahayn bal inaad arrimahaas yani aada wax ka tiraaho. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وسؤال في عن ومضن إن لسويديو برنامجكي إن مدة ودين maxaa idinka hirgalay, maxaad ku qiimayseen. su-aasha intaanan ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa inaan horta waadixiyo ama wax ka sheego maanaa ahdaafta aan ka lahayn sadciga muxuu yahay, si hadhow ay u caddaato hadafkii ma la gaaray mase lama gaarin. hadafka sadciga laga leeyahay ama sida uu magaciisuba yahay, macnaha sadci waa caddayn, waa bayaanin, waa xaqa oo dadka loo caddeeyo oo sida uu yahay loo gaarsiiyo iyadoon wax laga reebin, isagoona mugdi ku jirin in dadka siduu yahay loo gaarsiiyo. sidaa darteed macnaha annaga muhiimadana saaran waa caddaynta, laakiin ma aha dadka hanuunintooda iyo qalbigooda iyo muxuu ahaa in xaqa maaragtay aan qalbigooda gelino. taas waa arrin ilaahay subxaana watacaala uu gaar leeyahay, dadkuna ayagaa mas-uuliyaddeeda xambaarayo. laakiin annaga mas-uuliyadana saaran waa caddayn iyo bayaan sidaan soo sheegay. rusushana ilaahay subxaana watacaala sidaas ayuu maaragtay ku kalifay. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نبينا صلى الله عليه وسلم وحل يري ما عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم. وحل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
marka nusuustaas oo dhan waxay sheegaysaa in anaga ayna saarnayn hanuuninta dadka, laakiin ayna saaran tahay wax u sheegooda iyo bayaanintooda iyo gaarsiintooda iyo cadayntooda. marka taas horta waa midda ku saabsan macnaha cadayntii sharciga iyo wuxuu aadaaftiisu ay ahayd. haddaan usoo gudubno aan intaadan ka gudbin, macnaha jamaacadu iyadoo nusuustaas adeegsanaysay waxay aaminsanayd waxa keliya ee walwalka ku haya in ay tahay in dadku ay xaqa maqlaan isagoo sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu talagalay ah, waxba aan laga qarin, siduu yahay loogu sheego. macnaha taasay arkaysa in jamaacadu ay alla ku kalifay oy mukalafiin ku yihiin. tii baad marka halkaasaad rabtaa inaad ka dhisto macnaha. halkaas waay macnaha. marka haddaan usoo noqdo su-aashii jawaabteedii, macnaha ma gaarteen ahdaaftii aada lahaydeen. ahdaafta aan lahayn waxay ahayd macnaha inaan dadkan xaqa gaarsiino, waana culays aan dareemaynay oo ilaahi subxaana watacaala uu nagu kalifay, muddo dheerna aan ku taamaynay, diyaarinteedana maaragtay waqti dheer aan ku jirnay, taasoo ah muhiimad culus oo ambiyada ilaahi subxaana watacaala uu saaray. dadkii ka dambeeyey oo ducaadda ahaane la rabo inay meeshii kasii ambaqaadaan. muhiimaddaas culayskeeda dad badan oo maanta ducaad sheeganayo way ka cudur daarteen. ha uga cudur daartaan in macnaha ay dana gaara ku haystaan macnaha dadka maaragtay islaamka ama la colaytama ama kasoo horjeeda, ama ha uga cudur daartaan culayska uga imaan doono macnaha xaqan bayaanintiisa iyo siduu yahay in loo sheego. marka annaga muhiimaddaas culus oo ilaahay subxaana watacaala uu nagu kalifay ayaan maaragtay u istaagnay, waxaanan u caddaynay dadka xaqaaqidii islaamka oo juhdi dheer lagu bixiyey in la aaso oo axdaada islaamka ay isku kaashadeen. haddii ay noqon lahayd macnaha laga bilaabo xaqiiqatu laa ilaaha ila allah oo macnaha lagu soo koobay kelimaad iyo muxuu ahaa wax afka laga yidhaahdo, laakiin ay dhuntay macnaha macaalimteedii iyo in ay tahay kelimad macnaha waaqic leh oo xayaatadoo dhan saameynayso oo la rabo inay maaragtay qofka hogaamiso oo noloshiisa midda yar iyo midda weynba macnaha la rabo inuu maaragtay iyada ku fiiriyo. marka arrimahaas caddayntooda ayay ahayd annaga waxana saaran. waxaa ka mid a xaqaa'iqda maaragtay aada loo caddeeyey, macnaha waaqica basharka maanta uu ku nool yahay in aada loo caddeeyo. sababtoo ah haddii nusuusta la caddeeyo laakiin waaqica aan loo yeelin oo macnaha mujtamacaadku waxa ay ku nool yihiin iyo waaqica jira aan loo taabanin, macnaha waxaa ka dhalan kara faham macnaha khaldan. meelaha aadka loogu fahmo in macnaha nusuustii ay maaragtay caddaatay waxaa ka mid ah waaqica marka maaragtay laysla taabto. arrintaas waxaan rabaa inaan usoo qaato macnaha laba tusaale. tusaale wuxuu ahaa siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam markii ilaahi subxaana watacaala uu soo saaray oo muxuu ahaa maka uu joogay. markii xaqa uu la soo bannaan baxaba waa lala dagaalamay, waa laga hor yimid, waa maaragtay magacyaa loo bixiyey. dadkii rumeeyana macnaha maaragtay saas oo kale waa laga hor yimid, waa la tacdiibiyey. sidaa darteed waxay go-aansadeen inay hijroodaan. marka hijradii u horeysay oo islaamka oo hijratul xabasha loo yaqaano markii ay tageen, waa garanaynaa muslimiinta markay tageen si fiicana loo soo dhoweeyey. macnaha boqorkii caadilka ah oo najaashi ayaa soo dhoweeyey. quraysh markay maqleen waxay go-aansadeen inay wafdi ka daba diraan oo la soo celiyo. macnaha waa garanaynaa camar ibn alcaas iyo cabdullaahi ibnu abi rabiica ayaa loo diray. meeshii markay tageen waxay boqorkii isku dayeen inay ku qanciyaan in diintii ay maaragtay tolkood ay lahaayeen rag ka soo tegey oo asaga diintiisana aan soo gelin, laakiin macnaha maaragtay fududaaday. waaqic sidaas ay u tilmaameen. laakiin maadaama uu boqor caadil ahaa wuxuu sameeyey inuu ayaga laftooda waraysto. kadibna waa kuwii maaragtay afhayeen ka dhigtay oo xil saaray jacfar ibn abi aalib radia allahu canhu. marka si boqorka ugu suureeyo macnaha meesha uu ka yimid inayna diinu ka jirin, wuxuu sameeyey
macnaha waaqicii u tiri wuxuu yidhi ahlu jaahiliyaan ahayn waxaan ahayn dad maaragtay dhiigooda maaragtay isdagaalo oo dagaalo badan galay oo macnaha wax yar isku dila waxaan ahayn dad maaragtay akhlaaqda fiican aan lahayn dad maaragtay riximka gooya yacnaha dad maaragtay been abuurka iyo waxyaabahaas ku dhaqma marka waaqicii jiray ayuu wuxuu tilmaamay inuu ka fogaa islaam dhinaca kalena wuxuu tilmaamay markii nabiga sala allahu calayhi wasalam la soo saaray wixii o dhan inay isbedeleen labadaba marka wuxuu ku muujiyey macnaha waaqicii jiray boqorkiina wuxuu ku qancay labadii waaqic markuu fiiriyey in waaqicaa horena diin la-aan uu yahay waaqica dambe oo loo sharxana uu yahay waaqica macnaha islaamnimada iyo ku salaysan inuu yahay marka xaqaa'iqdoo la caddeeyo keliya kuma filna marka xaqa la raba in dadka la gaarsiiya ama loo caddeeyo laakiin waaqic ay ku nool yihiin waa in la caddeeya arrinta kale oon usoo qaadan lahaa haddii waaqica macnaha siduu yahay loo caddeyn waayo ama waaqic aan islaam ahayn la yidhaahdo waa islaam wax ka dhalan kara ayaan rabaa isagana maaragtay waaqic anigaba aan u taagnaa inaan ku daro macnaha markii sagaashameeyadii dagaaladu ay ka dhaceen Soomaaliya waa ognahay macnaha wax la isu reebtay ma jiraan qabiila la isku dilay macnaha beleeliqaa dhacday haweenkii waa la kufsaday macnaha agoontii waa la dhacay maadaama marka waxyaabahaas foosha xun ay dhaceen dadkii qof walba meesha u carari karo u cararay waxaan la kulmay marka dhalinyaro qurbaha isugu timid oo ka doodayo macnaha wadankii aan ka nimid oo muslimiinta ahaa oo maaragtay islaamka rumaysnaa sidaasay noo soo galeen halkana markaan gaaladii u nimid waana soo dhoweeyeen mushaaraaday noo qoreen guryayna dejiyeen marka maxaa khaldan su-aashaasaa laga dooday natiijadii waxay noqotay inay ku soo gabagabeeyaan oo yidhaahdaan macnaha islaamka waxa ka fiican ama muslimiinta waxa ka fiican gaalada inay yidhaahdaan taasna waxay ka dhalatay waaqica sidaa u foosho xun in islaam loo nisbeeyo in la yidhahdo islaamnimo boqolkiiba boqol waa muslim in la yidhaahdo ayay arrintaas ka dhalatay marka runtii annaga caddaynta macnaha xaqaa'iqda islaamka iyo waaqica ayaan runtii xoogga saarnay ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا نحو التألق يمنة وشمالا aad baad u mahadsantahay sare ficlan aad bay saameyn badan u leedahay waana wax la garan karaba oo sidaba umuuraha haddii lagu daayo hawada sare keliya loo tuuro oo aan dhulka la soo dejinin bini aadanka way ku adkaanaysaa inay saameyn ku yeeshaan wanaag kasta haddii dusha la mariyo qof walba madaxuu gundhinhaya mar haddaan marka wanaaggaas gudaha loo soo dejin ama xumaantii laga hadlay aan hoos loo soo dejin een qofka naftiisii lagu eegin macnaha waxaa weeye inay raad badan dhasho aad bay u yar tahay waana midda keentay maanta in caalamulislaami intaasoo khudbad iyo intaasoo kitaab iyo intaasoo muxaadaraad la jeedinayo laakiin haddana ayna waxbaba taraynin sababta waxaa weye maaha wax hoos loo soo dedejiyey ma marka waxaad leedahay macnaha marka yani balaaqa jamaacada saarnaa wuxuu ahaa xaqa oo sidiisa loo caddeeyo waaqaca dadku ay nool yihiinna macnaha waxaa weeye la tilmaamo oo laga faydo waxaa weeye yani maaskarada saaran ee dadka loogu talagalay in dadka maarata lagu sabirsiiyo oo looga dhigo inay maarata yani xaqiiqada islaamka hayaan dhinaca kale waxaad soo hadal qaaday macnaha xaqaas caddayntiisii tusaalooyin ka mida oo ah yani jamaacadu xilliga sadciga ay gashay juhdiga ay ku bixisay ama ha noqoto cod ama ha noqoto video in macnaha xaqaa'iqdii islaamkee la duugay ee beri hore maarata yani de boorka lagu aasay in la soo qufo oo la yidhaaha ma huwa alislaam ma huwa addiin ma hiya aljaahiliya waxaa weeye shirkigii gaalnimadii daaquudkii waxaa weeye alcibaada alcubuudiya alwalaa walbaraa yani masaa'il wada kulligeed caqadi ah oo dadkan ka qarsoontay ayaa banaanka lasoo dhigay si dadku ay macnaha waxaa weye calaa cilmin waxaa weye xaqii ay u arkaan oo markaa qofkii rabaana de cilmi ku qaato qofkii rabaana uu de iska diido marka laa shaka yani waa meel ay ka muuqan karta macnaha in yani hadafkii
waxaa weeye maarata yani sadcigu yani inuu macnaha ilaa xad inuu xaqiiqoobay oo jamaacadu maarata yani waxay u hadfaysay ay macnaha waxa ka keentay. marka waxaan filahayaa waxaa noo dhiman arrinta ah yani hadafkii jamaacadu ay ka lahayd sadciga waad sheegtay. waxaad kaloo tilmaantayna macnaha waxaa weeye macnaha qiimeynta inay tahay macnaha waxaa weye in barnaamijkaasi uu barnaamij yani taabagalay inuu yahay. bal marka hadda natiijada hadda taalla say jamaacadu u aragtaa? macnaha natiijada horta sidan hore u sheegnaba waxay ku salaysnayd balaaqa iyo caddaynta. annaguna macnaha sida maaragtay taariikhda dacwaadka lagu yaqaano natiijada ma sugeyn annaga in nala ku soo yaaco oo dadka dhanna raacaan oo nala soo dhaweeyo oo caleemo qoyan naloo raxo ma sugeyn. laakiin waxay ahayd dadka in maaragtay xaqa ay maqlaan maadaama muddo dheer maaragtay xaqiyoo kaamila aan la maqashiin in xaqa dhagahooda ku dhaco. natiijada marka waxaan isleeyahay annagoo halkaas ka duulayno macnaha inay xaqiiqooday oo dadkii caalamka daafihiisa joogay ay xaqii maqleen. waxa ay ka yeelayaan iyo natiijada ayagay u taallaa, go-aankaas ayagaa iskale. laakiin in meel walba oy joogaan macnaha dadkii xaqii ay maqleen wasiilo kasta oo lagu gaarsiin karana la gaarsiiyey. haddii ay tahay maaragtay wasaaishan internetka iyo wasaa'il ijtimaaci oo la adeegsado, haddii ay noqon lahayd bulshada aan la noolnahay oo na yaqaano oon maaragtay wax la barano oon la shaqayno oon qaraabada la nahay gaarsiintooda. marka natiijada waxaan isleeyahay macnaha waa natiijo maaragtay aada u fiican oo ah macnaha inay dadkii xaqii ay wada maqleen. ilaahay subxaana watacaala ayaa maaragtay ku mahadsan. haddee howl istaageysana ma aha oo xilkii waa naga dhacay dhihi mayno, waa howl soconayso ilaa maaragtay qofku uu nool yahay xilkaas weyn inuu maaragtay guto, maalinba maalinta ka dambeysana uu maaragtay ku dadaalo iskuna howlo siduu dad cusub u gaarsiin lahaa. marka iyadoon hawshii weli dhammaanin, laakiin waxaan isleenahay ilaa xad macnaha dadkii waa idin maqleen, fariintii waa gaartay, macnaha risaaladii maaragtay waa caddaatay. haddii yani runtii waxaa la xusi karaa marka maanta hadda mujtamaca soomaaliga la fiiriyo yani sadciga ka hor oo hadda 3 sano ka hor ahaa iyo maanta markii laisgarab dhigo macnaha dadku hadalhayntooda inaad arkayso basaska dhexdoodii ama maqaayadaha la fadhiyo ama xataa baraha muxuu ahaa internetka in ay doodu ka socoto macnaha waaqica maanta jira inay dadku tilmaamahayaan, inay macnaha xaqaa'iqdii islaamka shalay waxay tahayba ina garanayn ay ka hadlahayaan oo ay macnaha ayagiiba xusayaan leeyihin wallahi tani waa arrintii laga hadlay, wixiiba waa yaalaanba, wixii way muuqdaan ay leeyihiin. runtii waa qadiyad maarata yani ah natiijo wax ku ool ah oo ah dadku wacyigoodu inuu maanta inuu isbedelo. sida yani runtii xarakada markay bilowga ahaydba mujtamacii soomaaliga ee diinba aan war ka haynin ay u sababtay inay bar horta soo jeestaan, ayay tanana ficlan natiijadeedu waxay tahay dadku inay xaqiiqada macnaha islaamka inay ku soo jeestaan. oo dadkii waxaa kaloo natiijo la oran karaa dad shalay waxaan dhibsanahay ilaa mujtamac walba waa laga helaaye oo laakiin meelay wax u qaadaan iyo meelay cuskeen aan garanaynin inay maanta u muuqatay itijaah iyo meel uu wax u doonan karo oo haddii shalay wuxuu dhibsanayay uu meel uga bixi karo uu heli karo ficlan. marka waa wax la dhihi karo waa natiijo la taaban kara. aad baad doctor u mahadsan tahay. runtii jamaacadu marka ay hadda sidaas wax u qiimeynayso maaha inay yani iyadu intay isu saxayso ay 100% isi siinayso, laakiin qadaayaadkani waa qadaayaad ku salaysan yani xaqaa'iqda diinta ku salaysan way. kow, hadafka jamaacadu wuxuu ahaa inay dadka xaqa maqashayso, waana ahdaaftii ambiyada ilaahay loo soo diri jiray sida aayadihii doctorku hadda uu akhriyay ay tilmaamahayaan. taasi marka waa arrin tilmaamaysa macnaha jamaacadu macnaha waxa weeye hadafkeedii inay gaartay mar hadday xaqii inta la dhawaaqday wasaaisha balaayiinta dadka dhagahooda gaaraysa ay gaarsiisay wa ficlan macnaheedu waxa weeye hadafkaasi wuu xaqiiqoobe. midda ku saabsan qiimeynta oo ah maarata yani dee waaba taas aan tilmaamayno oo maantay dadkii waxa weeye maarata yani dee ay xaqii hadal hayaan, waxyaalo badan ay caddaadeen waxa weeye oo xataa laga garan karo sida xaqu saamaynta uu yeeshay in xataa saaxada waxa weeye ay ku badatay maanta inay dad kale bilaabaan xaqaa'iqdii shalay ay ka baqi jireen inay ka hadlaan
inay macnaha ku dhiiradaan oo ay ka hadlaan si ay macnaha waxaa weeye taasuna ma suuro gasheen haddii hadda weligeed bahasha aashunku adinka lagu wadi lahaa laakiin waa waxyaalo ka dhashay ficlan maaragta yani sadciga iyo barakadiisa ka mid a midda kale jamaacadu ma aha inay aaminsan tahay in hadday mar hadashay khalaas xilkii waaba naga dhacba maaha laakiin waxay aaminsan tahay sidii aan xalaqaadka hore kusoo tilmaannay dacwadu inay tahay hawl joogto ah oo qofka muslimka ah intuu nool yahay la soconaysa maruu dadkii xaqa u sheegahayo markii xaqa fahmay ee u yimid uu tarbiyaynhayo waxaa weeye maaragta yani si asaguba uu uga mid noqdo dadka xaqan dadka gaarsiinhaya waa camaliya marka mustamir ah oon weligeed istaagaynin jamaacaduna ay aaminsan tahay qadiyaddu hadday kow taha hawsheedii iyo baaxadeediina way la imaan doontaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka noqdo sida ilaahayba qur-aankiisa uu ku yidhi wacbud rabbaka xataa yaأtiyaka alyaqiin daawadayaal aad baad u mahadsan tihiin intaan xalaqo kale ku kulmayno waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu المشركين